waxaa jira qiso loo yaqaano qisatu saaxibi rumaana ninkii rumaanada lahaa. xadiiskaas waxaa wariyey alxaakim. waxa uu leeyahay nin reer bani israa'iil ka mid ah ayaa ilaahay subxaanahu watacaala cumrigiisa uu aada u dheereeyey oo uu noolaysiiyey 500 sana. 500 oo sannadood ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadiisa iyo salaad buu ku dhex jiray. maalin kasta ilaahay wuxuu uga soo saarahayey geed rumaan ah ayuu hal rumaan uga soo saarahayey. markaas buu halkaas rumaan cunahayey maalin kasta. markuu halkaa rumaan cuno ayuu isu taagahayey salaad. 500 oo sannadood sidaas ayuu u dhaqmahayey. markaasuu ilaahay wuxuu weydiistay markii uu ajashiisu dhammaato oo ilaahay uu ruuxiisa qaadahayo inuu ruuxiisa qaado isagoo sujuudsan oo uusan dhulkana ku sii dayn oo uu ka xifdiyo inuu dhulku cuno jirkiisa ilaa yowm alqiyaama laga soo saaro isagoo jirkiisii ishaysto oo sujuud ku jira. markii ilaahay subxaanahu watacaala uu sidaas warsado ayuu ilaahay sidaas u yeelay. yowm alqiyaama ayuu ilaahay wuxuu horkeenahayaa hortiisa. markaasuu wuxuu leeyahay addoonkayga waxaad gelisiin jannada. markaasuu wuxuu leeyahay ilaahayow waxaan jannada ku gelahayaa camalkayga. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga jannada geliya, raxmadaydana ku geliya. markaasuu addoonkii wuxuu leeyahay intuu camalkiisii la weynaaday 500 oo sannadood salaadoodii iyo sujuudoodii la weynaatay ayuu leeyahay ilaahu jannada waxaan ku gelahayaa camalkayga. markaasuu ilaahay wuxuu ku leeyahay malaa'igtii waxaad qiyaastiin nicmada aan u nicmeeyey iyo camalkiisa isu qiyaasa. markaas baa nicmooyinkii ilaahay uu u nicmeeyey mid ka mid ah oo ah nicmada aragga iyo basarka ayaa la isqaabiliyey. markaas bay nicmadii basarku ka badnaatay 500 oo sannadood cibaadadeedii. markaas baa jasadkii kaleeto nicamtii uu ilaahay u fidiyey ay soo hartay. markaas buu ilaahay wuxuu leeyahay addoonkayga naarta geliya. markaas baa naartii loo kaxaynhayaa. markaas buu wuxuu leeyahay yaa rabbi biraxmatika adkhilni aljanna, naxariistaada jannada igu geli. markaas buu ilaahay wuxuu leeyahay soo celiya. markaas baa lasoo kor istaagahayaa, lasoo ag istaajinhayaa ilaahay. markaas buu wuxuu leeyahay ilaahay yaa cabdii man khalaqaka walam taku shay-a, yaa ku abuuray adigoo aan waxba ahayn. markaas buu leeyahay adigaa i abuuray yaa rabbi. markaasuu leeyahay yaa 500 oo sannadood cibaadadooda awood kuu siiyey. markaas buu leeyahay yaa rabbi adiga ayaa awood ii siiyey. markaas buu leeyahay yaa ku dhex dejiyey bad dhexdeed oo jabal kaaga soo saaray, oo jabalkaasna biyo macaan kaaga soo saaray, oo maalin kastana rumaan kuu soo dhaliyey. rumaankuna sanadkiibuu mar dhashaa. markaas buu leeyahay adiga ayaa intaas ii sameeyey. markaas buu leeyahay waxaad i weydiisatay adigoo sujuudsan inaan kuu ruuxa kaa qaado, marka sidaas baan kuu yeelay. marka yaa sidaas kuu yeelay? adiga ayaa ii yeelay buu leeyahay. markaasuu ilaahay wuxuu leeyahay intaas oo dhan raxmadeyda ayay ku ahaadeen. waxaanan jannada ku gelaysaa oon jannada kugu gelinhayaa raxmadeyda ee camalkaada ma aha. ninka intaa ilaahay subxaanahu watacaala caabudahayey oo isagoo sujuudsan ilaahay la kulmay ayaa yowm alqiyaama ilaahay wuxuu ku leeyahay waxaad jannada ku gelaysaa naxariisteyda ee camalkaada kuma gelaysid. annagoo marka muddo kooban oo aada u gaaban ilaahay caabudayna maxaa loo malaynhayaa cibaadadeennu in ay keeni karto